waxaanu ku bilaabanaa Kenya iyo Soomaaliya. Hogaamiyaasha Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku heshiiyay inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan kadib dagaalo qadhaadh oo ka dhacay xadka labadaasi dal. iyagoo khadka telefoonka ku wada hadlay saaka ayaa madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ballan qaadeen inay xallin doonaan khilaafaadka amni isla markaana xoojinayaan xiriirka labadaasi dal. haddii aynu eegno xaaladda xadka Kenya iyo Soomaaliya waxaynu arkaynaa inay Kenya ku eedeysay ciidamada Soomaaliya inay burburiyeen dhismayaal ku yaalay magaalada xadka ku taala ee Mandera, taasi oo sababtay inay dadka deegaanka qaxaan. dhowr qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada ka socda maamul goboleedka Jubbaland oo lagu eedeeyay in Kenya gabaad ka helayaan inkastoo ay Kenya arrinkaasi iyadu tafirtay. khilaafka Soomaaliya iyo Kenya haddaynu dib u raacno eegno waxaynu arkaynaa in khilaafka waxyaabaha kamid ay tahay in dawladda Kenya ay taageerto maamulka Jubbaland oo aanay dawladda Soomaaliya aqoonsanayn. haddii aynu eegno sidoo kale waxa idin jirta khilaafka ku saabsan xagga xadka badda oo labada dal ka dhaxeeya oo imka maxkamadda cadaaladda adduunka ay gacanta ku hayso. khilaafkan cusub haddaba muxuu ka dhigan yahay? Dr. Afyare Cabdi Cilmi oo bara jaamacadeed oo caalamiga ah ayaa arrintan ka hadlay. dawladda Kenya inay tiraahdo waxaan na soo weeraray dawladdii Soomaaliya oo aan anagu ilaalinaynay oo aan anagu protect gareynaynay aan soo weerartay oo xorriyadeena ku soo xadgudubtay iyo madax banaanideena waa arrin yani aan macna badan sameeyeen aqli badan sameeyeen. waxa kale oo ayadana xiiso leh dawladda Soomaaliya oo AMISOM iyo Kenya iyo ayadu u baahnayd oo Haiti la protect gareynay oo ayaduna leh waxaan xuduudka ka soo xiranaynaa ciidamo gudaha ku jira already yani dalka gudihiisa Kenya gudaha joogaan marka xuduudkan soo xiraynaa iyo xuduudkan sugaynaa iyo marka waxa muuqata inaan wax aqli badan meesha ka shaqeyn si guudba dhinacii doontaba ha ahaatee. mid kale mushkiladda Soomaalida dhaxtaalo oo gobolka iyo Jubba iyo dawladda dhaxa ah in ay u baahan tahay arrin ka duwan in had sida loo abaaray oo ah xooga. haddaba si aynu wax badan uga ogaano arrimahan Soomaaliya iyo Kenya khadka Nairobi toos waxa ku jira Maxamed Cabdilaahi oo khabiir ku arrimaha geeska. Maxamed Cabdilaahi soo dhawow. Soomaaliya waxay sheegayaan in ay Kenya nin mas'uul baxsad ay gabaad siinayaan khilaafyo horena u jiray xageeba arrimahan ku socdaan bay kula tahay. taas hadee way sheegtay dawladda Soomaalidu way tiri arrintaas waxaana la sheegayaa inay run tahay ninkaas inuu halkan joogo yaa wararka qaarkood ay sheegayaan laakiin Soomaali badan baa wadankan joogta. qisada arrintaasna waxay ka socotaa halkaas iyo Mandera laakiin saaka sida ula socotid waxaa inay labada madaxweyne wada hadleen arrintiina hadda waxaan u malaynayaa inay xogaariira degtay oo telefoonka ay ku wada hadleen. lama garanayo yaa telefoonka soo diray laakiin wararka Soomaaliya ka imaanaya siday sheegayaan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa u soo diray Uhuru Kenyatta marka xaaladda arrintaas way yara dejisay. waan gartay Maxamed sidii hore ma ahayn sida ula socotay shalaytona golaha ammaanka ama nabad sugidda ee dalkan Kenya yaa sanadkan siduu bilaabay markii ugu horeysay kulmay oo arrin khatara ka hadlayay sida iyagu arkeen. waan gartay waynu ognahay Maxamedow xadka labada dhinacba Soomaaliya ku nool dadkii Soomaalida halka deganaa haddii arrintan si murugto sidee bay u saameynaysaa? waa arrin aad u xun. arrintaas Soomaalina uma roona Kenya uma roona si gaar ahaan uma roona shicibka xadka degan dhib badan baa ku haysta halkaas. sida u socotay Soomaaliya iyo Kenya halka Mandera wadda dhaxmarta oo wadada dhinaca kale hadaa ka qeyleysa qofkiiba waa u yeeri karaysaa marka wayna isku xiran yihiin ganacsi baa ka dhaxeeya marka dagaalada meelaha ka socda khasaare bay dhinac walba ku yihiin shicibkana badi meesha ku baabaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa Maxamedow waad ogtay caawa waxaanu gabi ahaanba ku eegaynaa fayruska corona oo ku sii faafaya dunida kaasi oo geystay saameyn weyn oo xagga dhaqaalaha iyo socodka dalalka caalamka dhana. waxaana ilaa hadda cudurka oo markiisa hore ka bilowday uu soo gaaray dalka Shiinaha ka soo bilowday uu soo gaaray ilaa imka 70 dal oo cudurkaasi laga helay. guud ahaan tirada u dhimatay cudurka waxay ka badan tahay bal iyaduna imka inta la xaqiijiyay 3200 oo qof. haddii aynu eegno qaaradda Afrika marka aynu eegno waxaynu arkaynaa in dalalka laga helay Masar,
tunisia, algeria, morocco, senegal, nigeria iyo dalkii ugu dambeeyey uu haleelo ah dalkaasi South Africa. haddii aynu haddaba eegno bariga Africa weli lagama soo sheegin cudurkan. haddaba su'aalahan waxay tahay Soomaalidu aynu suudiinana caawa Soomaalidu ma u diyaarsan yihiin ka hortagga cudurkan. waxay kala qayb galay barnaamijka Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ku takhasusay cudurrada guud iyo Ibrahim Maxamed Nuur oo agaasimo ka ah wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. waxaa kaloo isaguna ku sugan stuudiyaha London Cabdirashiid Dahabshiil oo isaguna xagga dhaqaalaha ka wareysan doono agaasimaha guud ee shirkadda Dahabshiil. waa tahay Dr. Abshir soo dhow. aad iyo aad ayaan u dhawahay Cabdiraxmaan. aad baa looga hadlay waad arkaysaa cudurkii fayruska corona meel kastoo adduunka saameeyay. maxaynu dadka u sheegi karaynaa Soomaaliyeed sidee baa cudurka looga hortagi karayaa? dad badan kulli macluumaadku way maqleen. Okay, ka hortagiisa waxaan u kala qaybin karnaa laba qaybood. qayb ah si group ah ama personal ah hadii qofku uu isku arko waxyaabaha uu sameyn lahaa sida maxaan ku dhahaa gacmaha oo uu dhaqdo dadka inay gacmaha mar walba dhaqdaan markay wada hadlaan hadii aad la kulatid qof cudurka qaba inaad 2 mitir ay isu jirtaan maadaama candhuufta ama waxa ka soo baxaya uu soo raacayo mid kale in uu mask oo isticmaalo qofka ku dhaco oo mask loo xiro maskaas wuxuu tarayaa qofka qaba in uusan faafin laakiin macnaha wax weyn uu qabanayo ma laha sida scientifically oo proved oo laga dhigay mid kalena waxa Soomaalida loo la hagaagsan tahay inay sameeyaan oo aan arkayba in borderada diyaaradaha soo degayo dekadaha meelaha oo dhan in la dhigo team oo caafimaadka qaabilsan oo baaraya dadka soo galaya wadanka in aan la iska bixin hadal oo maxaan ku dhahaa aan jirin sida dadka madowga ku dhaca kuma dhaca oo kale maadaama Africa already uu ku bilowday kaasna aan la faafin laakiin in aad loo digtoonaado oo maxaan ku dhahaa meel walba team ama group la sameeyo iyo in la diyaariyo xirooyin oo maxaan ku dhahaa quarantine qofka isolation lagu sameyn karo qofka hadii uu isku arko oo inuu cudurkan qabo inuu guriga uusan ka bixin oo uusan dadku uusan u faafin meelaha badan. waad mahadsantahay Dr. waan kugu soo noqonayaa Dr. Abshir aad waad mahadsantahay. agaasime Maxamed Nuur waad maqlaysay Ibrahim Maxamed Nuur waad maqlaysay doctorka idinku dawladda Soomaaliya tiin maxaa practically ficil la taaban karay la hadda qabateen marka laga baxo wacyigelinta? aad iyo aad u mahadsantahay runtii dhakhtarkana si fiican ayuu ugu sheekeeyay wasaaradda caafimaadka runtii diyaar garow aad u ballaaran ayay ka sameysay arintani waa sax waa arin global issue ah marka coronavirus-ka sidaan ognahay wasaaradda caafimaadka tallaabooyinka ay qaaday waxaa ka mid ah kow in meelaha ama irdaha laga soo galo guud ahaan dalka loo tababaray shaqaale caafimaad xirfadlayaal ah horena way u joogeen haddana waa loo abaabulay waxaa kaloo wasaaraddu ay diyaarisay qorshe ballaaran oo ah sidii loogu sameyn lahaa garoomada laga soo dego meelo lagu hakiyo haddii qofka uu ka imaaday wadamada looga shakisan yahay cudurka sidaa darteed wasaaradda caafimaadka oo la shaqeynaysa guud ahaan uu hogaaminayo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda dawladda hawada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda amniga guud ahaan kulamo ballaaran ayay yeesheen bishan oo dhan aad ayaa loo shaqeynayay waxyaabaha laga shaqeynayna waxay ka mid tahay kow in la tababaro dhammaan shaqaalaha jooga garoomada international flights ka yimaad aan ka dhaxgalagaasime garaalahow waad ogtahay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyadii ma la shaqeeyaan oo imika boosaaso qofka ka soo degaa ama Kismaayo ama Gaalkacyo dadkii meelo badan baa laga soo galaya wadankii meelmaha sideeba xaalku yahay? aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa sax dhammaan irdaha laga soo gala dalka hadii ay noqon lahaayeen kuwa aeroboorada ama hadii ay noqon lahaayeen kuwa xuduudaha dhulka ah ama hadii ay noqon lahaayeen dekadaha inta dhammaan si guud ayaa wasaaradda caafimaadka oo la shaqeynaysa wada shaqeyn buuxdan leh dhammaan maamul goboleedyada dalka ay ka wada shaqeeyaan waa kugu soo noqonayaa agaasime Ibrahim waad mahadsantahay. Cabdirashiid Ducaale Cabdirashiid Dahabshiil waad ogtahay xagga dhaqaalaha ayaan adiga ku weydiinayaa adduunka dhaqaalihiisa aad buu u lulmay waad aragtay adduunka oo dhan wax walba waa istaagayaan bal leeyahay xagga ganacsiga saameyn intee lag badan la imika aragtay maxaa jira bay kula Cabdirashiid? runtii bidhaano saad u sheegtay dhaqaalaha adduunka waa wax isku xidhan Soomaalida dhaqaalahooduna adduunkaas uu ka mid yahay ganacsadaha shirkadaha Soomaalida Dahabshiil ay ka mid yihiin saameynta adduunka dhacaysa horta aad bay uga xun yihiin dad badan oo socdaal u bixi jiro ganacsi u bixi jiray oo wax doonayay soo iibsadaan runtii ma soo imika socdaaladii way yareeyeen shirar badan oo dhici jiro wadamo badan ka dhacay waa la cancel gareeyay dad badan oo dalxiis u tagi jiray wadamada Afrika qaar kamid ah iyaga laftoodu socdaaladoodu way bedeleen
marka haddii uu xanuunkani sii socdo horta dhaqaalaha adduunka aad buu usii saameynayaa dhaqaalahaasna dadka soomaalida maciishadoodii noloshooda way qaaligaroobaysaa dad badan oo shaqayn jiray shaqadoodii bay runtii ku yaraanaysaa adiga ogoo dad badan oo dhalinyaraaba imika UK ka shaqeeya oo dee masaariif u dira ama lacag u dira dadkoodii wadankoodii joogay dee marka haddii dadkii ay u adeegayeen ay baqayaan dee runtii way saamaysay dadna fursaday u dhalisay adiga arkayo imika dadkii waxay qaar badan dawadii saabuntii gacmaha lagu meedhinayay ninka ganacsatada maanta lacag ka shaqaynaya saabuntaaba qaar doonaya inay iibiyaanba marka waxyaalo wax walba dhaca dadna fursad bay u keenaan dadna khasaare u keenaan marka waxaad leedahay sharikadaha qaar baa iyagu faa'iido sameynaya kuwii xagga sanitationka oo kale ama waxba gacmo lagu meedhayo caafimaadka shirkadahaas waabay dhargeenba lacag baabay ka dhargeen waayo saabuntiiba kiyuu loogu jiraa dukaamadii baa laga iibsanaya waan gartay cabdirashiid waad mahadsantahay kugu soo laabanaya doctor Abshir waxa socda waad aragtay waxa socda dad fara badan oo Soomaaliya ayaa baraha bulshada ku jira been abuur badan baa socda warar been dadka madow kuma dhaco muslimka kuma dhaco fayrusku waa sidan waxaan buu ka dhashay maxaad waxaad nooga sheegi karaysaa doctor waxaas waxba kama jiraan mana wanaagsana in la faafiyo war aan jirin ama wax scientifically aan proved aan ahayn in dadka lagu faafiyo ma wanaagsana si aysan alarmigi aysan hoos ugu dhigin mar walba waa in la foojignaada oo alerta la ahaada mar walba soo gali karaa mar walba waajihi karaa Soomaaliya meel walba ka soo gali karaa especially diyaaradaha tagaya airportada xuduudaha Kenya Ethiopia meel kasta in ilaalmada ay aad loo wanaajiyo waxaan arkay in Hargeysa ay aad u diyaar garoobeen ayaan arkay marka faafinta oo wararka aan jirin ma wanaagsana waana in maxaan ku dhahaa hay'adda waan gartay doctor Abshir waxaad ku weydiinayad cudurkan marka uu ku dhaco matalan 100 qof imisa ka kacaysa yani inteeba ka badbaada matalan percentage boqolkiiba dadku marka uu ku dhaco cudurka badanaa waxaa la lahaa cudurku waxa u dhimato 2% u dhinta cudurka recovery ayuu sameeynaya haddii sidii loogu talagalay la sameeyo waxa uu aad ugu badan yahay u dhiman karaa dadka oo difaaca jirkooda aad u yar yahay sida dadka qaba cudurro kale sida qofka lagu talaalay kidney ama transplant kale jirka loo sameeyo oo qaadanaya daawooyin oo immunosuppressant hoos u dhigaya dadkaas ku badan yahay hadduu caruurta ku dhaco ku badan yahay dadka aad u weyn daada weyn lehna uu ku badan yahay maadaama sanbabka uu dhacayo uu kaga duwan yahay hargabka waan gartay waan arkin shalay dawladda Soomaaliya agaasime Ibrahim Shirbay qabatay hay'adaha ay qabatay waxa laga hadlay marka in laga hortago shaybaar cudurka lagu baaray meeshii la dhigay ma diyaariseen dawladaha adduunka oo dhan miisaaniyad gaar ah u sameeyeen virus ma u sameeyeen miisaaniyad gaar oo degdeg ah sida adduunka shaybaarkii ma sameeyeen maxay la hadda qabateen wadamada kale xiriir ma kala leedihiin maxaad uga sheegi karaysaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay runtii waa sax wasaaradda caafimaadka diyaargarowga ee gashay waxaa ku jirta ama qayb ka ah sidii loo heli lahaa haddii cudurka uu dhaco sidee lagu baari karaa baaritaanada sida aan ognahay haddaba adduunyadu meelaha qaar uma baaritaano rasmi ah lagu samayn karaa sida South Africa oo kale laababkooda laakiin gudaha dalka hadda diyaargarow aad u ballaaran ayaan ku jirnaa sida aan ku heli lahayn sida aad shalaba arkayseen wasaaradda caafimaadka oo hogaaminaysa wasiirka wasaaradda agaasimaha guud waxa ay la fariistay meel lagu baaray la hadda ma lahayaa viruskaasi baaritaanka marka laga hadlayo badanaa waxa lagu baaro ama lagu ogaado waxa la waa PCR machineska waa la ogaan karaa laakiin marka laga hadlayo in la xaqiijiyo confirmed case-ka marka xumadii lagu arko qofkii marka lagu arko calaamadihii waxyaabahaas oo dhan kadib ayay noqonaysaa in baaritaanadiisa waxyaabaha loo gudbo sidaa darteed wasaaradda caafimaadka diyaargarow aad u ballan ay ugu jirto sida lagu heli lahaa laababka aadka muhiimka ah ee lagu baarayo waad mahadsantahay cabdirashiid Abshir baan gudbay cabdirashiid waad ogtay Shiinaha iyo Afrika aad bay isu dhaxgaleen xagga ganacsiga Shiinihii iyo Afrika ganacsigii weynaa adigoo degdeg iga jawaabaya saameyn inta lag buu viruska ku yeeshay bidhaan runtii saameyn buu ku yeeshay maxaa yeelay wadanka ugu badan ee xanuunkan uu ka dhacay waa wadanka China runtii dhaqaalaha Afrika iyo kuwa Soomaalidaba aad iyo aad bay isugu xidhan yihiin marka tii waxay keentay dad badan oo ganacsato